gabdhaha ma wada wanaagsana qaar baa xun oo nolosha ka dhacsan qaarna way fiican yihiin midda nolosha ka dhacsan midda nolosheedu fiican tahay marabto waxay ku dadaalaysaa inay sidaas ayada tahay oo kale ka dhigto kuwa biyaha wax loogu daraayo oo sidaas daraagis ku la qabsado kuwa mushkilooyin badan oo aanan halkan aniga ku soo koobi karin baa iska jiro marka dhibaatooyinkaas ayaa ku dhacdo waxaan hadda ka hor kula kulmay gabar saaluun timaheeda dhan isku dhegdhegan yihiin waxay ugu tiri muddo dhowr bilood ma shaqaysaneen qasayro xanuun badan ay iga sheekaysay waxay tiri Soomaaliya joogay reerkeena la noolaa familkeena waxay ahaayeen famil sabool ah halkan gabdho soo aadeen oo lacag reerahooda u soo dalbanaan arkay kadib waxaan ka qaatay reerahooda lambaradooda waana soo wacay waxay tiraahday waxay ugu dhaheen shaqeena reerkeena waa bilna lacagna meel baa dhiganaa walaalayaal hadii aan imaado meeshii lacag ii raadin kartiin shaqooyinkii oo kala aan reebay dhaxday dan haabay ku dhaheen gabadhii sidii baa inta lagu keenay markaan maalin iyo habeen nastay bay tiri magaalada Nairobi aan ku suganahay baa waxaa dhacday bay tiri in lay wado gabdhaha aniga ma aqaan bay tiri laakiin waxay ahaayeen bay tiri kuwa jirkoodii ka ganacsado shaqada ay lacagta reerahooda uga soo diraana shaqo ay halkaas ka keeneen bay ahayd marka waxaa dhacday in waxaa dhacday gabadhiina meesha markii la geeyay biyo waxa loogu daray waxay tiri muddo kadib baan waxaan soo baraarugay tiri anigoo aan daaqada ka baxsan adiga okay sida markay igu dhacday bay tiri waxaan isku dayay tiri inaan soo waxeeyo daraagiski baa baraadinayaa bay tiri anaa barabo waxay ay siinayeen sanka wax iga siiyeen waxay igu dareen wixii anaa barabay tiri qalbigaygu wuxuu isleeyahay waxaan aad ka baxdin mana ka bixi karay tiri awooddaas ma lihi maryam waxaa jira gabdho markii nolosha Nairobi ay ku adkaato dantu ay ku kalifto in ay shukaansadaan ragga ay u malaynayaan inay hantida ka helayaan iyagu madan baa ugu jirta mise dhibaato baa laga yaabaa inay ka soo gaarto inta aad ogtahay horta nin xoolihiisa la cunay oo aadan daacad u ahayn waxaa ka soo gaaray dhibaato markay ugu yaraatay il noqoto inaad meelaha ku dhacdo noqoto marka kalena waxa waaye qofkan ficil baa galayo oo mid baa isku dayay inuu ka argoosto ninna wuxuu leeyahay iska dhaafada ay sidaan garatay waa mid ku fiican kaas u fiican oo ka tagay wixii kaama harin nafsi aad ka sheegay meel ku yaalo marka waa wax ayada hadhow ayaheeda dambe iyo nolosheeda dambe saameyn weyn ku yeelanayo marka marna faa'iido ugu jirto gabdho waxaa jira iyaga oo noloshooda maareynaya ragga hantida lana shukaansanaya laguna qasbayo macnaha si hantida loo siiyo in iyada jirkeedii ay iyadana ay ku bedelato taas oo laga yaabo inay gabadha ay macnaha ama uur ay ku qaado ama un dhibaato kale ay ka soo gaarto gabdhaha noocaasi oo kaleeta ah waxay ay siinayeen sanka wax iga siiyeen waxay igu dareen wixii anaa barabay tiri qalbigaygu wuxuu isleeyahay waxaan aad ka baxdin mana ka bixi karay tiri awooddaas ma lihi maryam waxaa jira gabdho markii nolosha Nairobi ay ku adkaato dantu ay ku kalifto in ay shukaansadaan ragga ay u malaynayaan inay hantida ka helayaan iyagu madan baa ugu jirta mise dhibaato baa laga yaabaa inay ka soo gaarto inta aad ogtahay horta nin xoolihiisa la cunay oo aadan daacad u ahayn waxaa ka soo gaaray dhibaato markay ugu yaraatay il noqoto inaad meelaha ku dhacdo noqoto marka kalena waxa waaye qofkan ficil baa galayo oo mid baa isku dayay inuu ka argoosto ninna wuxuu leeyahay iska dhaafada ay sidaan garatay waa mid ku fiican kaas u fiican oo ka tagay wixii kaama harin nafsi aad ka sheegay meel ku yaalo marka waa wax ayada hadhow ayaheeda dambe iyo nolosheeda dambe saameyn weyn ku yeelanayo marka marna faa'iido ugu jirto gabdho waxaa jira iyaga oo noloshooda maareynaya ragga hantida lana shukaansanaya laguna qasbayo macnaha si hantida loo siiyo in iyada jirkeedii ay iyadana ay ku bedelato
taas oo laga yaabo inay gabadha ay micnaha ama uur ay ku qaado ama un dhibaato kale ay kasoo gaarto gabdhaha noocaasi oo kaleeta ah marka ehelkooda ay maqlaan dabcan dee waxaa weye dhagaxumo badan baa reerkooda ay usoo jiidaysaa intii adigu aada goobjoogka oo ahayd ma ku soo martay micnaha gabdho noocaas oo kaleeta intii aad arkaysay ama xogogaalka ood wahay walaahi horta ilaahay hana wada astiro waxaa waaye way jiraan gabdho badan oo dhibaatooyin noocaas ku dhacaan oo uur intee loo yeelo uurka lagu inkiro familkooda ceeriyo wax badan oo dhibaato ah halkaas uga timaado maqal iyo muuqaalba waanan aragnay waanan maqalnay marka waa kaas waan gartay marka dee nolosha Nairobi wiilasha iyo gabdhaha markii loo fiiriyo waxaa xagga adkeysiga ku badan ragga oo iyagu meelo badan bay ka xamaashaan gabdhaha iyaga oo shaqaysan kara laga yaabo in gabadhan ay ama maqaayad shidan karto ama saaluun ay furan karto ama uun dee meel kale uun ay ka shaqayn karto intaba gabdha aan isku dayin baa jira iyagoo xoog leh laakiin asxaabtooda la nool gabdhaha caynkaasi oo kaleeta ah ma iyaga ayaa gabdhaha kaleeto xumaatada usoo jiida mise waxaa weeye waa uun dhaqan ay gabdhuhu ka siman yihiin okay gabdho dad la nool oo sharaf leh way jiraan oo aan cidna dhaqan xumo usoo jiidin cidnana dulmin gabdha wax dulmiyana waa jiraan laakiin gabadhan awood qof walba horta bini aadan rag iyo dumar ilaahay awood buu siiyo awooddaas waa awood uu wax ku qabsan karo mar haddii lixdaadii lixaad iyo caqligaaga ay ku dhammaystiran tahay wax waa qabsan kartaa ama dumar aho ama rag aho ka ragga xoolaha uu soo shaqaystay oo aad ku xisaabtamaysa bishii markay dhamaato dad baa ku xisaabtamo adigu waa samaysan kartaa maqaayad haddii aad furatid oo aad shaah karisid sharaf waa shaqo haddii aad dukaan furatid waa shaqo ayadana sharaf haddii aad gabar dukaan intaad u imaato aad usii gado bishii mushaar ku xisaabtana sharaf مريم intaas markii aan ka soo gudubno gabdhaha iyagu aan ehelkooda la nooleen Nairobi ku nool iyo nolosha ay ku nool yihiin bal adigu taariikhdaada goormaad Nairobi soo gashay sidee ku soo gashay yaas hadda la nooshahay أنا حسنت هرت رجف أنا سومالي بحي هذا جير هان كوين هذا وحاها جير هان كوين هذا وأقول شيء هو اللي أبهي با إلا مركان بس إلا يحلي من تاجيه كنا لهاي لا نولهاي الحمد لله واحد بات كل ما كل منه كل جميل أنت ما بحي وسفر هذا ودن كل جميل تجينا لبعتك إذا ما إنسان سوق بسنين مركا كلنا عمري جدا بتشوفه waan gartay marka nolosha Nairobi aad fiiriso gabar aan ehelkeedina la noolayn adiguna aad gabar aad tahay oo aad ehelkaaga la nooshahay farqiga idin dhaxeeya ee ku sawiran muxuu yahay horta damiir bil aadanimo jiro kuwa aan heesanin waxa aan aniga heesto marka aan arko waan u danqadaa waa walaaladay islaamnimo iyo Soomaalinimo waan wadaagnaa farqiga noo dhaxeeyana qofta hooyadiis ka soo agtoosay ilaahay hano daayay iyo qof hooyadiis ka maqan tahay xataa haday u nooshahay isku mid ma ahan boholiyo ba jira xataa gabadha hadaysan xumeyn nidaam iyo sharaf iyo sumcad xataa magaalada ku joogto boholiyo hayaa jiro bahda maqan marka farqigaas aan u dhaxeeyo waan gartay marka loo fiiriyo dibad dareemi kartaa inta badan sida hadda sheekadii aad ka sheekeysay gabadhii wanaha beenta loo sheegay ee Nairobi sida ku timid markii dambe xumaatada aragtay lugaha la gashay haddana qaabka dambe walaalkeed uu sabab u ahaa in ay ka baxdo gabdhaha ku jira arinta gabdhaha kala doorsanaya iyagu nolol fiican bay u arkaan bal malaynaysaa mise aqoon baba waraari waxaan leenahay Allah soo hadeeyo xaq iyo wadada toosan Allah tuso anaga dhanna Allah na wada tuso مريم أكاد ما عندنا كقيب قادة شذا برامج كات نقل قيب قادة دميرة الصومالية ينولش نيروبي. هذا أمانتين إذا كان هواكم هزنتين ماشينا يقع سنتين.